السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وولاشين برواقة كان نغال سعوتان وبرواقة جنر هذا نوع عسب تيسولو أصحابتك وصوبير جنر كان سبسكرايب نوصار هذا ترى نولا جوكتين ما تفيدي عسبان قوة فيديو ونوسي شكري لايك تاني نوصار صحابي هانتان وايد جيفتان هذا جنر كصوب وقتان بليز سبسكرايب تأي سارة سودو هذا ما تفيدي عسب حقوق كوساب هاي فيس كلينسينج هاي دوسي دونا لبا كلينسر oo wajiga aad ugu fiican waxay ku kala fiican yihiin waa idin sheegi doonaa insha Allah shirkadana waa shirkada oo dhanariga ah midka koowaad waxa waaye glycoside foaming cleanser hadii dad kasta horta isticmaali karaan marka koowaad laakiin wuxuu aad u anfacayaa dadka wajiga olyada haysto hadii wajigaaga olya yahay aad ayuu adiga kuusii anfacayaa hadii aadan wajigaaga olya ahaynna still weli waad isticmaali kartaa laakiin waxaa laleeyahay dad ahaanta inuu aad u sii anfacayo qofka wajiga olyada ah subaxyaa ku dhaqan kartaa habeenkiyaa ku dhaqaysaa wajiga ku nadiifinaya makeupka iskaga dhaqi kartaa aad ayuu ugu fiican yahay wajiga midka kale ku xiga waxaa waaye squalane cleanser kaas wuxuu aad asna horta marka koowaad qof kasta isticmaali karo qof kasta maqaadkiisa ama dry ku ahaada ama sensitive ku ahaada qof kasta oo isticmaali karaa balse laakiin markii la sii fiiriyay wuxuu aad ugu fiican yahay ama uu sii faa'iido badan yahay dadka haysto wajiga dryga hadduu wajigaaga dry yahay noocaas ayaa ku anfacayo insha Allah gabdhihii soo weydiinaysa soo ogaada waji dry tahay squalane-ka aad ku anfacayo haddii wajigaaga oo leeyahay ama waji iska caadi kala ahaatana glycoside cleaning foamka ayaa aad ku anfacayo ka faa'iidaysta shirkadana productkeeda aad ay u fiican yihiin haddii jiraan qof isticmaalayna insha Allah commentiga noogu soo reeba faa'iidadiisa